Halkani waa buuraha qiiqa iyo ololka. Waa mid ka mid ah mucjisooyinka qaaradda Afrika. Waa folkaanada Arteali ee dalka Itoobiya. Waxaynu ku sugannahay Danaakil, harooyinka qiiqa iyo milixda ka samaysan aashitada. Waa meel ay adag tahay inaad booqato, balse halkan ayuu ka bilaaban doonaa safarkeena. Ina Maria. This is Arteali, the mountain that smokes, and right now, Safarkeenii ugu dambeeyay waxaynu booqanay Dalool oo ahayd goobta ugu kulul uguna hooseysa dhulka oo darajada kulkeedu uu gaarayo 49 digrii oo u dhigmata 120 Fahrenheit. Waa meel ay adag tahay inaad aaminto sida ay u tahay mid ashqaraar badan. Waana meel isku darsatay midab cajiib ah oo dhacda dhulka buuraleyda ah, balse waxaadan ogeyn inay ku lamaan tahay mucjiso kale oo ah buuraleyda folkaanada ee Arteali. Bal eeg sida ay u eg tahay goobta aynu hadda soo gaarnay. Finally, we made it. Waa meel ku taala bariga Itoobiya, gobolka Cafarta, xadka u dhow dalka Eritrea, waxaana lagu yaqaanaa inay tahay meesha ugu kulul adduunka, heerkulkeeduna waxa uu gaaraa 50 digrii. Sidoo kale, waxa ay halkani caan ku tahay inay ka hooseyso jooga badda qiyaastii masaafo gaaraysa 125 mitir. Sidoo kale, waa mid leh folkaano u qaraxda si joogto ah sida Arteali iyo harooyinka ka samaysan milixda aashitada wadata. Waa mid ka mid ah meelaha ugu adag ee bani'aadamku uu ku noolaan karo harraadka iyo hanfiga ka jira awgiis. Folkaanadan ayaa u qaraxda si joogto ah iyadoo buuraha u samaysma qaabka saddexagalka ahi sida buurta Kilimanjaro iyo Fuji ay ka khatar badan tahay midda halkani ku taala. Waxaa laga arkaa qaraxa iyo uurada ay samayso meelo fogfog. Sidoo kale, waa kuwa soo daroora dhimbilaha debka ah ee ka samaysma folkaanada. Folkaanada Erta ayaa ah mid caan ka ah adduunka oo dhacda dooxada Leva ee bariga dalka Itoobiya. Saaxiibayaal, habka kaliya aynu ku gaari karno goobta folkaanada ayaa ah inaynu u lugayno, maadaama aysan lahayn wadooyin nadiif ah oo gawaaridu marto. Waxa aynu u dhaqaaqnay jihada ay naga xigto goobta ay ka dhacayso folkaanada Erta, waxaana maanta safarka igu wehliyay Yaasiin oo ah ninka nahagaya iyo xaaskiisa iyo saaxiibaday. Runtii safarku waa mid adag, waxaynu ku lugayn doonaa buurahan dhagxaanta badan. Ninka nahagaya waxa uu wataa baskoolad oo ah hubka fudud. Markii aad halkani joogtid, dadka deegaanka waa kuwa hubeysan oo aan hubkooda marnaba dhigin. Yaasiin waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka, waxa uuna ka soo jeedaa qowmiyadda Canfarta oo ah qowmiyad degta gobolkan, waana kuwa ka warhaya dalxiisayaasha halkani soo booqda. Waxa uu ii sheegay inuu aabihii 4 guri halkani ku lahaan jiray ka hor inta aan dhulka uu ka dhicin. Sidoo kale, waxa uu ii sheegay inuu aabihii halkani ka sameeyay waddo gaaraysa 12 kiiloomitir oo deegaanka ah. By hand. 12 kilometers of moving hard stone by hand. Yeah. You were a little boy. Yeah. You were born. Yeah. Imagine that. Waxaan muddo 20 daqiiqo ah sii wadanay socdaalkeena annaga oo markani daalnay, waxaanu ku dhowaanay goobtii aynu u soconay. Halkan waxaa kaaga muuqda 2 buurood oo ololaya, isla markaana ay dhawaan ka qaraxday folkaanadu. Halkan markii aad joogtid waxaad dareemi doontaa kulayl saa'id ah maadaama ay tahay goob ay folkaanadu si joogto ah uga kacdo. Sidoo kale, ma jiro sharci dadka ka celinaya in aysan u dhawaanin goobaha khatarta ah ee folkaanadu ay saameynta ku yeelato, sababtoo ah halkani ma joogaan wax ciidan ah oo ka shaqeeya borotokoolka dalxiisayaasha. Iyadoo halkani ay ka mid tahay goobaha naadirka ah ee caalamka, haddana dowladda Itoobiya kuma bixiso dadaallo ay dalxiisayaashu ku soo gaari karaan halkan. Sida aad halkani uga jeedaan, goobtani waxa ay ka mid tahay goobaha ay ku soo dhacaan dhimbilaha debka ah ee butaacaya ee ka samaysma qaraxa folkaanada. Markii aad eegto dusha sare, waxaad arkaysaa harada mucjisada badan ee Leva oo aan lahayn meel cagta la dhigo. Qiiqa, ololka, kulaylka iyo muuqaalkeeda oo ah mid aad u yaab badan. Waxaynu isku daynay inaynu u dhowaano, balse dhulka iyo dhagxaanta ayaa mar qura nala dhaqaaqay. Kuwani waa dhagxaha haraadiga ah ee folkaanada, waana mid aad u kulul oo aan la taaban karin. Hadda waxaan aad ugu dhownahay buurta folkaanada
waxaana samayn doonaa tijaabo anagoo ukuntan yar dul saari doona dhagxaha kulul ee folkaanada waxaana eegi doonaa waxa dhici doona. Can we cook it? Some point very recently, this was all fresh, and now it seems to have calmed down a little bit. But the heat coming off this is insane. My elbow. Okay, will it cook? What do you think? No! Look at this. We put the backpack down to be a try. I reckon so. It's been like 15-20 minutes, so... It's dripping, see that? I've never So seen an egg, look, it's like dripping liquid. See that? Oh, mate. Why? I've never seen an egg drip like that before. Oh. Woo! Ready? Yeah. Hot potato, hot potato. Hey, hey, hey! Woo! Hot, hot, look at that. One little touch. It broke. Under pressure. Look at that. daqiiqada yar kadib ukuntii waaba bislaatay oo waxay noqotay mid la cuni karo. Bal eeg mucjisada folkaanada runtii waa mid aad u olol badan waana mid qarisay oogada dhulka ku hareeraysan buurta. Waxaan weydiiyay Yaasiin oo ah ninka nahagaya waxa ka dhacaya halkan waxa uuna ii sheegay inay tahay wax dabiici ah isla markaana ay la qabsadeen dadka deegaanka. Sidoo kale waxaan la tacajabay dhaqanka cafarta iyo dharka ay xirtaan waana kuwa had iyo jeer hubaysan oo aan dhigin qoryahooda. Gobolka cafarta ee dalka Itoobiya waxaa laga helaa mucjisooyinka qaaradda Afrika oo uu ka mid yahay dhulka joogiisa hooseeyo goobta caanka ku ah midabada kala duwan ee dalool iyo dooxooyinka hanfiga badan ee folkaanada ee loo yaqaano lava. Fadlan haddii aad nala soo gaartay halkan channelka subscribe dhe oo ka mid noqo saaxiibada inagu xiran waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa sheekooyin iyo muuqaalo xiiso badan. Show.